asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta qaybtani lixaad ee taariikhda gacanku rimiska ah ama beenta ku dhisan ee sheekh muuse ismaaciil buux waxaan kaga hadli doonaa meelaha iska sawaabiyaan sheekh nuur xuseen oo ku aasan magaalada baladulkariim ee degmada jilib ee kismaayo u dhow markaasi iyo sheekh muuse halkay iska sawaabiyaan iyo calaamadaha ay ka siman yihiin. waxaad og tihiin inuu talyaanigu soo galay dalka Soomaaliya taariikhdu markay ahayd 1889 waxuna soo galay deegaanka koonfurta Soomaaliya. marka talyaaniga waxa kala hortagay dagaal xoogan beesha biyamaal ee dirta ka tirsan oo degta marka iyo qaybahaas degta ayaa kala hortagtay dagaal xoogan oo diidanayd inuu talyaanigu ku faafo dhulka ama uu qabsado. sidaad ogtiina beesha biyamaal waa beel diinta islaamka ku dheeraysa wadaado badan leh taariikhdana aad ugu jirta Soomaalida. marka waxay adeegsan jireen beeshaasi si ay talyaaniga uga hortagaan waxay dadka ku faafin jireen oo ay oran jireen deegaankaasi koonfurta Soomaaliya waxay sahayaayeen waa islaan iyo kristan baa haya. marka haddaad kristanku dhulkeena soo galo islaamnimadu way baabi'iyeen ka hortagno markaabay ummadii oo dhan ku kiciyeen Soomaalidii oo dhan ku kiciyeen si deegaankaasi looga cayriyo talyaaniga ama looga hortago. talyaanigu dhib badan buu ku mutaystay si uu soo galo deegaankaasi laakiinse markii dambe uu u fikiray wuxuuna helay sheekh uu isticmaali karo samaysan kara isagoo gacan ku rimisa sida sheekh muuse. sheekhaasi waxaa la yidhaha sheekh nuur xuseen. haddaba sheekh nuur xuseen waa kuma? sheekh nuur xuseen wuxuu ka soo jeedaa reeraha la yiraahdo reer baraawiga ee koonfurta Soomaaliya dega. sheekh nuur xuseen wuxuu ku dhashay magaalada Basra la yiraahdo ee u dhow degmada Jilib ka tirsan. sheekh nuur xuseen wuxuu u xanuunsaday isagoo dhalinyaro waxa la geeyay dhakhtar ku yaala magaalada Faragurow la yiraahdo halkaas oo dhakhtarkaasi talyaanigu gacanta ku haynayay. kadibna ninkaasi nin hadallada hadal yaqaana gabay yaqaana falakiga wax ka yaqaana diintana wax ka yaqaana hadraawina dadku aad u dhageystaan. talyaanigii wuxuu dareemay ninkan inuu yahay inuu isticmaali karo. kadib waxa la dejiyay sheekh nuur xuseen magaalada la yiraahdo baladulkariim. markuu bogsaday talyaanigii baa maalgeliyay. baladulkariim waxay ka mid tahay degmada jilib. talyaanigii baa maalgeliyay mashruuciisii wuxuu noqday sheekh uu talyaanigu ku shaqaysto oo uu ka horgeeyo maasha si uu dadka u kala jabiyo Soomaalida koonfurta u kala jabiyo ee hormuudka u tahay biyamaal kacdoonkaasi si uu jabiyo. sheekh nuur xuseen wuxuu noqday inuu ku shaqaysto talyaanigu. sheekhaasi haddaba maqaamkiisu wuxuu noqday maqaam oo kala baxa ummadda Soomaaliyeed noqdana mid u adeega talyaanigii gumaysigii talyaaniga sida sheekh muusaha aan halkan Jabuuti ku naqaano. sheekh nuur xuseen wuxuu sameynayay dadka deegaankaasi waxay u badan yihiin beeraley. talyaanigii wuxuu siiyey dawada lagu bacrimiyo beeraha ama ongareega loo yaqaano buu siiyey sheekh nuur xuseen. sheekh nuur xuseen taxliil buu ku daray dawadii uu sameeyo falsiya ama been ayuu ku daray. marka wuxuu dadka beeraleyda u imanayay way gacanta ka dhunkanayeen. sheekh nuur xuseen oo noo barakee beerta la oranayay wuxuu raacinayay rag kamid ah kooxdiisa. markaas bay beerta ku shumayeen ongareega ama dawadaasi 3 bilood ama 4 bilood kaloo la gooyo beertu waxay noqotaa beer miro badan oo ka tayo fiican sanadkii hore. dadku markaa waxay aamineen inuu sheekh nuur xuseen yahay nin karaamad. kadib waxa dhacay maqaamkii sheekh nuur xuseen wuxuu noqday inaa loo bixiyo xaramka magac xaramka inaa loo bixiyo oo 7 jeer qofka u yimaada sheekh nuur xuseen ka ducaysanaya maqaamkiisu 7 jeer ku wareegayay sida xaramka. kadib gacan dhagax laga qoray oo ku taala gidaarka oo gacantii sheekh nuur xuseen oo kale lamida iyo qofku u jilba joogsanayo dhunkanayay. kadibna baraka iyo ka barakayso meeshaasi ka dhacaysay sidii nabi maxamed oo lala hadlay Allah. sheekh nuur xuseen wuxuu madaxa kaga qabsaday dadkii khurafaad iyo been buu kaga qabsaday sida culimadiisu sheegaysa. bal fiidiyoga kala dhageysta wuxuu dadka ku akhrinayay beertaadan tafaafuli iyo maxay ahaydey xoolahan ka baabi'in iyo haddaad bixin weydid xirteeda ka mid noqon weyd. wuxuu gaaray inuu yiraahdo qofka xirtiisa ka mid noqda malagu ma dilayo nafta kama qaadayo ilaa isaga la weydiiyo. markuu isagu fasaxoon baa qofka nafta laga qaadayaa. ilaa halkaa buu gaaray sheekh nuur xuseen. nuur xuseen wuxuu noqday sidaad ogtiin baraawiintu waa dad badmareena taariikhdiisii iyo qisadiisu waxay soo gaadhay Zeyla ilaa Jigjiga. halkuu ka keenay fikirka xaaji lacagdoon waa halkaa ninkii maxay u shaqaynaya amxaarada
iyo faransiiska u shaqaynayey xaaji lacagdoon ee mamaasan bahfur laba halkuu ka keenay fikirka waa halkaa sheekh muuse halka laga abaabulay iyo nashqada laga soo qaatay maqaamka sheekh muuse waa halkaa إلهي من كبده شيخان شيخ نور حسين معلندار ووليد إلهي من إلهي من كرامة كانوا كسيي ومولانا شيخنا شيخ نور بن حاج الحسين رضي الله عنه دوركم يسكت يظل حق البركة أي أحد الله ماشى أيضا يدور يسكت هو سلبي مركز نور وحاول يقول بحي مركي ماشى أسوه جوي ماشى على وعكي أسوه جيتكي مع نتاي استنور أي أيام أركي مركز نور كماشى وكي مع الشيخ نور حسين ماشى وكي مع dadka meesha degan 7 firqa ayaamaha ilaahay ay ku qabiilahayeen jimca qabiil way sabti qabiil way ahad qabiil way 7 firqa ayaa la dhahaa hada dilacda ama jariirta baltagin aad deganto midka ama mid aad ka tahay ninka iyo wiilkiisa waxa la arkaa inay kala yihiin laba raay kala noqdaan haduu wiilka sabti dhisto ama ahad dhisto ama abi jimca u ahaa jimcada ma magalay ماشي أبيس وها مالك وقوله كسر هيدو أبيكيس كاسو أما جماعة يا مسكت ما حدا مد من الغني مرة أو شو من كلامي سبحانك مده بنفتح لنا عقولي وحكيت لنا الشيء بيا كسر بحنا مرة بيا عيسى بحنا وبلدتي الله يعني أو شمور مرتي بيس أو شيء سنديني بيا يقول لكون سورة وكرامات أولياء إلهي وسي بيه مركو واجب بريء انت عديه سوق وادين بلا مرهايبا بيه وان نقدين بدل كان نقدين لو حتى حبالها dadka lagu duubo oo markii beledka sida uu yaho oo ciisa oo kale yawshi lagu suray kabtiga marka ay noqdeen qabta diiga noqdeen midda kale aan sheegno sigaaradiisa maxaa kamid ah xirta markii ay baxdo sahay ma wataano dada la aruurini waxa la ziyaaradona أو شغلوا ضدك أصدقائي إبقلان أصبح ماشى جلوك الشيء أركوه ما دوانا فاسين هنا إله وقرد أفو لماذا حي ما شاكين أيضا ميل دغير أبار آي تحي بينا آيان هاي السنة أيها الله كل هذا مركبة ضربة إله بسوه السيد ماشي بأن لعبه بهذا إله أرض يسأل الله في جنة ماشي أقول لك دي مرة يقول أردنا وأقع وألا قشدك وألا برواقه marka imaadeen sheekhu ugu midaakirooday maana heblaay aad joogteen maxaa aragtay waa yarteen anigu aan joogi waay marka uliyada ilaahay inay libax noqoto inay mas noqoto inay yaxaas noqoto mushakil ba ka suurtooda ambuula la saaray inuu soo jeedayo mar waa la saaray ilaahay ya karinayo maanta sheekha barkiisa karinaysa iyadoo ka taalo imaanay زيارة المدينة أنا عاص حياتي سوى إلهي كبر إن حياتي أنتم نويا حياتي عاص بازوسي ويا بديع واحد بحاجة ماله زب ورايا أمين أنا لسوي مع المشي راي مع الدعوة أبو سيدنا عنا قبسته حوالي ويقنعنا إلهي أبو سيدنا عنا قبسته نرجع ربع بوحة بيا ملك من الله هاي بعد ماله إني كان المدينة زيارة شغلوني مساكين في حقوق المدينة عندي إلهي رب يدسي أنا عاص كان سسوق على مودة أنا عاص كسوسي بدي أنا عاص كسوق على إلهي لو في الزيات عاص كنتو نوري هذا إلا لو وضع حاج أحمد أبدا ونبي اللي رسالة العذر إجاز ونقي نالي مع البلدي بادية لبروا قولي sheekh nuur xuseen wuxuu ka guursaday beelaha Soomaaliyeed oo dhan wuxuu dhalay nin la yiraahdo Axmed la yiraahdo dhalay Axmedna wuxuu sii dhalay Rufaaci dadka reer Jabuuti way yaqaanaan maqaamka sheekh Rufaaci oo waa ka ku yaala madaxtooyada Jabuuti agteeda waxa la furay maqaamka 60kii dhamaadkiisii ilaa 70-adii baa maqaamka la furay sheekh Rufaaci waa inanku awoogo u ahaa sheekh nuur xuseen wuxuu ku leeyahay maqaam kale meesha la yiraahdo ceelasha biyaha ee Muqdisho ku taala agteeda ayuu ku leeyahay maqaamkiisa labaad marka waad aragtaa inuu Jabuuti inuu xiriir la lahaa baad aragtaa sheekh Rufaaci oo ah maxaa heediye sheekh nuur inay cilaaqaad lahaayeen badata sheekh nuur marka waxaad soo kartaa sheekh nuur xuseen iyo lacagdoon iyo sheekh muuse iyo geela betel iyo sheekh ibraahim cilaaqaad miyay lahaayeen waa wax suurtagal ah
haddaba taariikhaha gacan ku rimiska ah ee sheekh nuur xuseen iyo sheekh muuse maxalkay iska sawaabiyaan. sheekh muuse iyo sheekh nuur xuseen waa labada sheekh ee iyagoo nool maqaam samaystay taariikhda Soomaalida. waa labada sheekh ee u adeegsaday diinta inay dadkooga ku baabi'iyaan. waa labada sheekh ee u adeegay gumaysigii. sheekh nuur xuseen oo ahaa sheekh talyaaniga u adeegaya si uga hor yimaado kacaankii ummadda Soomaaliyeed. sheekh muuse oo ahaa u adeegay amxaarada maamulkii Hayle Selassie ee amxaarada u adeegaya iyo kii gaalka ee Faransiiska u adeegaya si uu uga hor yimaado maamul kacdoonkii ummadda Ciise ee diidanayd gumaysiyadaas ka soo horjeeda inay deegaanadooda ka taliyaan. sheekh muuse iyo sheekh nuur xuseen waa labada sheekh ee isgarab dhigay nebi maxamed darajadii uu joogay isku tilmaamay. waa labada sheekh ee dalbaday inaa loo sujuudo. waa labada sheekh ee dalbaday inaan sidii nebiga loo ammaano. waa labada sheekh ee maqaamyadoodu ay noqdeen meelo ummadda lagu dhaco. waa labada sheekh ee maqaamyadoodu ay noqdeen maqaamyadii falakiga laga abuurayay maxay ahayd indhasarcaadkana looga dhigay dadka diin looga dhigay. waa labada sheekh ee maxay ahayd diinta ka hor yimid beenna ka sheegay. waa labada sheekh ee maqaamyadooda salaad iyo kitaabba u mamnuuc ka yihiin. waa labada sheekh ee qabuurtooda ka dhisan maqaamkooga aanan ku aasnayn ee meel kale ku aasan. waa labada sheekh ee u adeegsaday diinta ka dhigta hagoog diinta si ay indhasarcaadkooga iyo falakiga ay adeegsanayaan ay ummadda diin uga dhigaan. waa labada sheekh ee maqaamadooda ayna fusuqu mamnuuc ka ahayn ay iskula galmoodaan dad aanan isqabin, nin iyo naag aanan isqabin ay iskula galmoodaan. waa labada sheekh ee maqaamyadooda dad lagu dhacay lacagana lagaga dhacay. waa labada sheekh ee maqaamyadooda ubad aan meher lagu dhalin laga helo. waa labada sheekh ee fasaxay inay maxay hayday dumar iyo rag ay dhabta iskugu fadhiisan karaan ama dhinac ay iskugu qaban karaan maqaamyadooda. waa labada sheekh ee ummadda fasuqa diin uga dhigay ee u fasaxay qodobadii diintu ay sheegaysana ka hor yimiday.